قولك سقالة كفاية سنة وحويان من شكر النعمة وأعطى الفقراء زاده الله غنى وبارك له قفكي نعمة كم حد عليا فقراء وحوض السية إلهي غناء بو زيادية ونأبركيا ومن بخل قفكي حولها هيستا فقد عرض نفسه لزوال النعمة وسخط الرب القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد قفكي بخيل نغضا حولها ددك أديدا نفتيسي حولي سبوحو أبندقي إني زولان محايا الإلهي ويقول لئن شكرتم هداد كما هذا علسان لأزيدنكم حولها وإن زيادنا ولئن كفرتم هداد نعمتكم كفردان إن عذابي لشديد هذا كي هو درنيا marka waxa laga qaadanaya qofkii wax la baxaa in Ilaahay u kordhinayo qodobka tobnaad waxa weeyaan inkaaru ni'mati yajlibu an-niqma wa yusabbibu ash-shaqa ni'mada oo la inkiraay waxay keentaa cuquba waxayna soo dedejisaa qofku inuu naxariista Ilaahay ka fogaado qodobka 11aad waxa weeyaan al-karamu deeqsinimadu yajlibu an-ni'ma wa yudhibu bin-niqma wa yurdi ar-rabb wal-bukhlu yajlibu as-su'a wa yusqitu ar-rabb wa isla macna isku dhadhow wuxuu leeyahay deeqsinimadu waxay soo jiidaan nicmada waxayna fogeysaa niqmada iyo in Ilaahay uu ku ciqaabo ribaha Ilaahina waa lagu helaa qofka bakhiilnimaduna waxa xun bay soo dedejisaa nin waxaan garanayaa maal qabeen ah geel aad badan laha ya zakada ka bixi laga waay anu qisada waan taagnaa cid iga sheekeen mayso war zakada ka bixi waa laga samray waxaan maranayaa 100 neef buu lahaa hadayna ka wadamay geeliisi halkan Minneapolis oo kale ka diday didmo geel wax didnaya la arkay ka waran oo wax hor istaagi karana aan jirin daw haduu ku soo hagaaga ka leexan maayo laak haduu ku soo hagaaga ka leexan maayo geed haduu ku soo hagaaga ka leexan maayo ma aqaanuun adu dhul aan maray 200 kilomitir iyo habeen iyo maalin geelaas ordaya markaas mid daw bay ka dhaco ku jabi mid laak bay ku dhici mid geed ba caloosha ka gali wax hor istaagi karana ma jiro wuxuu baa didinaya anu like baan noolaataas cidii ma sheekeynayso ilaa hadda ninkii waa nool yahay say u socdeen yaa waxay galeen webigan ma aragtay Juba intuuna soo dhulkan soo galin webiga ka hor yiduu waa dhul weyn oo biyo ah inta baaqigeeda soo hadhay ba hadana webigi dib uga soo rugmatay jidkiiba hadana dib ugu soo ordeen 200 kilomitir ba intii marka saa u sii ordayeen ilaa 50 baa soo dhamaatay 50 inta xagga u soo socotay bay dhamaatay adu markii dambe yaa xeradii ay ka dideen sidii marba dhinac looga raacayay oo loogu qeylqeyliyay ashuu ma aqaan 20 naf soo dhaxbay oo wada iyaguna indhaha meel walba ka duran ana marka ciyaal baan ahaa laakiin hadda aan fahmayaa ninkaas dhibka haystay dadkii oo waraabaan bay Ilaahay ku sii daayay xoolahaas wax kala ma ah sida darteed waa inay dadku ka digtoonaadaan nicmada markuu Ilaahay siiyo in nicmada ku iman karto qodobka la yootonaada u dambeeyo waxa weeyaan al-mu'minu yafi bima wa'ad wa la yabkhal والمنافق يعاهد ويعد ولكن لا يفي بعهده ووعده قفك مؤمنك هدو wax ballan qaado uu fuliyaa xoolaha haduu helana wuu bixiyaa munaafiqu haduu wax ballan qaado ma bixiyo maxay ahayd xoolo ma oofiyo xoolahana ma bixiyo sidoo Ilaahay yiri ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وحول وحاكمت أن منك منافقين نيري هدو إلهي حوله سنسيو النعمة فقر عنها حول نسيو صدق عن لبحينا تدك الصالحين كمل نقرينا فلما آتاهم مركوا إليه منا من فضله إلهي حوله سوسيه بخلوا به ويهيستان وتولوا وينجيتنا وهم معرضون حالين وجيتنا نبي نقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 منافق على منك الوكر سوا صدح إذا حدث هدو شاكي كذب بيان بشيغيا وإذا وعد هدو بلن قادنا أخلف وكبحيا وإذا تمنى هدي وحلو لبت أماننا خانة وخيانة متفق عليه الله سبحانه وتعالى أعلم